بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي baa mahadle subxaana wa tacaala ina soo gaarsiiyey maanta oo bishu ay tahay 11 sanadka 2024 inagoo ku dhawaaqayna insha Allah tacaala inaynu sidaynu la wada soconno shirki golaha dhexe waxa uu 2 sano 22 iyo 23 ayuu ahaa muddooyinkii labadii sano ee uu dib u dhacay waxay idin in 22 uu qabsoomo dib u dhacay 23 dib u dhacay xaaladihii markaa jiray wadanka iyo duruufihii siyaasadeed ee kana dartood ayaana sababayay sidaynu horeba u wadaagnay waxaynu maanta oo bishu ay tahay 11 August aynu ku wargelinayna dhammaan golaha dhexe xubnaha golaha dhexe inay bisha sagaalkeeda haddii Ilaahay ka dhigo inuu shirki golaha dhexe qabsoomayo kana qabsoomayo Hargeysa haddii Ilaahay ka dhigo Ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaanu weydiisanaynaa inuu inoo fududeeyo laga bilaabo maalinta beriya qof kasta oo xubnihii golaha dhexe ah waxa uu kaarka ka bedelanayaa haddii Ilaahay ka dhigo oo berito oo ay bishu tahay 12 laga bilaabo ilaa iyo maartay muddo aynu cayimi doono oo aynu dharlaynu qaban doono haddii Ilaahay ka dhigo kadib ayaamaha soo socda waxa bilaaban inaynu maartay u diyaar garowno oo kaarkii golaha xarunta loo soo doonto oo ay bedeshaan kaarkoodii hore xubnihii golaha dhexe shirku wuxuu ku qabsoomi doonaa haddii Ilaahay ka dhigo Hargeysa ayuu ka qabsoomi doonaa insha Allah tacaala sidaasaan dhammaan ku wada wargelinayna xubnaha golaha dhexe hadday joogaan gobolada hadday joogaan dibadda ay joogaan iyo haddii ay gudaha iyo dibadda saasaynu ku wargelinayna haddii Ilaahay ka dhigo duruufihii aynu deena haystay baa sababay inaynaan kal hore aynaan qabanin marka saasaa loo diyaar garoobaya insha Allah tacaala saasaan idinku wargelinayaa shirka golaha dhexe inuu qabsoomayo 9 bisha September haddii Ilaahay ka dhigo bisha 9 sagaalkeeda inuu furmi doono kana furmi doono magaalada Hargeysa aad iyo aad baa u mahadsantihiin kaar qaadashaduna ay ka bilaabmi doonto xarunta dhexe insha Allah tacaala laga bilaabo 12 bisha 8 ay ka bilaabmi doonto ay ka bilaabmayo kaarka ayaa loo soo doonay xarunta aad baa u mahadsantihiin